bismillaah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay walaalahayga qaaliga ah subax wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo waqti kasta idii tahay أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ديننا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم صباح وناكسن ولا قاليقة وحان رجينا دمانتين بإنا فرحتي عافماد لصوت توستين إلهي دي سيادي انت حنوني عاجز لصوت توستين إلهي هكاقادو إلهي عافمادها أوغو بدلو ولا قاليقة وحاد لقب سنة إن شاء الله جدول كي سبديقة يوحيابها أنقبتو maalmaha weekendida ah waxa iga soo codsadeen gabdho walaalahii ah waana mahadsan yihiin waxaan rajeynayaa insha Allah in aan fuliyay codsigii la iga soo codsaday waxaan ku bilaabanaa insha Allah subaxda horeeta ee sabdiga insha Allah fiidiyoga wuxuu soo gaari doonaa berito oo axad ah باذن الله الكريم waxaan sameeyay pancake fudud pancake waxaan ku sii caruurta malab yar insha Allah iyo koobkooda shay caanaha halkan waxa iyaala maharagada ama digirta waaweyn waxaan ku soo qasay biyo waxay la soo taalay 2 saacadood oo amal ay la soo taalay digirta marka biyaha la dhigtid acidka ka baxaayo qof gaas qaba xitaa wuu cuni karaa ma dhibeyso oo marka digirta biyaha cabaar ay la taalo waa aragtay aashita amala kor uga soo baxaysa ama inay burinaysa amal ay noqonaysa waa acidkii ku jiray kor ayuuna uga baxaya asxaabtayda qaaliga ah waxaan ku soo saartay maharagadii digsiga pressure cookerka haddana waxaan qasan doonaa insha Allah jabati waxaan ku qasayaa insha Allah cusbo sokor yar oo 2 qaando ah iyo saliid iyo biyo qaando ah biyaha qaando waxa way warm ah waan soo qasay jabatiga maraan kor saaranaya waa sii dhiganaya kadibna waxaan sii qabsan doonaa insha Allah shaqooyinkayga kaleeto walaalahayga qaaliga markaan quraacda kariyay 2 saac ama la gaaray waan soo adeegtay waxaan la laabanaa hadda shukumaanadii ama tawelkii aan jikada u isticmaalayay shukumaanada xalan dhaqay way ii qalaleen waan la laabanaa insha Allah kadibna waa baangeysanaya asxaabtayda qaaliga ah waxaan soo gatay waxyaabo yaryar oo jikada iiga dhinay waxay ku sahlayaan hawshaada maalintaas waxa kaleeto ay ku sahlayaan maalinta sabdiga hadii aad isku tashatid waxyaabaha aad guriga uga baahan tahay in aad soo gadatid jadwalkii iskuulka inuu ku saxmo oo waxyaabaha iskuulka aad uga baahneed oo dhan oo sidaas jadwalka uu kugu saxsanaado maalmaha weekdayska ama maalmaha uu la aadayo iskuulka si uu kugu saxnaado waa inaad weekendida aad ka fikirtaa waxyaabihii ilmaha aad u sameeyay laheeday haduu ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo iyo waxyaabihii aad u sameeyay laheeday waxaan soo gaday kiilo chicken aheeday oo boneless ah ama jiir ah qaar waxaan u jarjaray dheer qaarna waxaan u jarjaray dhuudhuub waxa kale oo aan soo gaday sausage insha Allah halkan waxa iigu jira cananaaska waan jarjaray waxaan ku shubay weel fridge-ka meesha koreeta ee barafka ayaan gelinayaa halkan waxa iyaala cabbage asna waxaan ka sameey doonaa insha Allah coleslaw ama saladka oo KFC oo kale ayaan ka sameey doonaa insha Allah halkan waxaan ku karsanayaa maharagadii way ii soo bislaatay dabka waxaan soo saara doonaa insha Allah digsi waxaan ku soo shubtay saliid waxaan ku shubanayaa basal waxa isku soo shiidayaa 2 xabo oo yaanyo 1 xabo oo shishiid ah iyo 4 xabo oo yaanyo ah ayaa isku soo shiidaya yaanyada ii taalo saaid gaduud oo ma ahan qudaarna waan soo gatay asxaabtayda qaaliga ah qudaarteedana waa baangeysan doonaa insha Allah hadda qudaarta waan sii dhaqay wixii dhaqis u baahnay waana sii dhigay yaanyada markaan ku soo shubay digsiga daboolkiisan soo saara insha Allah waxaan diyaarsanayaa jabatiga waan kuskuusaya insha Allah walaalahayga qaaliga ah markaan kuskuuso ayaan kadib saliid wada mari doonaa insha Allah sidaas ayaa u marinayaa saliida kadibna round ka dhigaa wax yarisan saas ugu garaacaya meesha jabatiga soft ay u noqon marka saliida aad ku kaandaysid ama aad la dhigtid cabaar ee la taalo wax yaris bur ah waa ku bitinaya jabatiga sidaas u soo wada duubtay asxaabtayda qaaliga ah kadibna waxaan u laaban doonaa insha Allah digsiga soo fiirinaya markaan subka ka degsado ayaan u soo laabanaa insha Allah jabatiga hadda waan wada duubanaa maraa kor ka saarana insha Allah si ayna dabeesha uga dhicin saliidana ay si fiican gudaha uga soo gashaa
waa ujeedaan jabaatigana soft waaye aad u jilicsan yahay damo u jilicsan yahay jabaatigada wuxuu ku noqonayaa softi sidaas oo soo bangeystay shukmaana korka saarana insha Allah markaan soo dhameeyo subkii ama maraqi aan soo kariyay ayaa soo laaban doona insha Allah yaanyadii way soo bislaatay biyihii way soo dhuuqday hadda waxaan ku shubayaa maharagadii aan ku shubi doona insha Allah maharagadii aan ku soo shubay waxaan ku daraa wax yariis oo paprika ah waxa kale oo aan ku daraa wax yar cusbo ah waxa kale oo ku dari doona insha Allah plain yogurt ayaan ku darayaa wax yar 3 qaando camal waa ama bakeeri halfkiis oo plain yogurt ayaan ku darayaa plain yogurt wuxuu siinayaa masha Allah taste aad u macaan maraqan wuxuu kaaga dhigayaa ku dhahe maraq chicken curry oo kaleeta ah masha Allah culus dhadhan leh ayuu kaaga dhigayaa masha Allah waxa kale oo aan ku darsan doona insha Allah maharagadena ama subkeena waxa kale oo aan ku darsan doona insha Allah curry powder waxaan ku darsanayaa Royco cube waxa kale oo aan ku dari doona insha Allah cabbage jarjaran ayaan ku dari doona insha Allah asagane kabashka ku daraaya wax yar way kabashka badan ma ahan halaha si ayaan ku dari doona ama hal sacab oo halaha gacantaada oo soo qabato oo kaleete bis ayaan ku dari doona insha Allah waan isku qasayaa subki waa diyaar waxaan soo jarjaranayaa jabr baroni ah oo carfis ah uga dhigayo dak subkeena waa diyaar markii aan basasha saarayay ayaan toon ku daray asxaabteeda qaaliga ah afwan marka kuma dari doono insha Allah wax oo kabsar caleen iyo toon isku tumi doono taas ayaa ku filan carafteeda hadda waxaan ku darsanaa insha Allah barbaroonigi subka waa diyaar birti jabaatiga ayaa la soo saaraa marka insha Allah waxaan ku dari doonaa insha Allah wax yar liinta shiidan ayaa wax yar ku dari doonaa insha Allah dhanaanka ku yar iska arag lagama sheekeyn karaan ku dhahay alaabtan masha Allah caruurta aad ay u jecel yihiin asxaabta qaaliga hadda waxaan dubi doonaa insha Allah jabaatiga dibka waxaan soo saaray birtii aan dibka soo saaray birta markay soo kululaato ayaan gaabi doonaa insha Allah jabaatigan soo duubanayaa 2 ilaa 3 insha Allah kadibna waan soo dhameysanayaa hore ayuu ugu jiraa video anigoo jabaati sameynayo 2 mar ayaan soo geliyay jabaatiga mar anigoo ukun ku daraya iyo mar asagoo ukun la'aan intaba hore u soo geliyay soo maanta waxa idila qaybsanayay jadwalkayga insha Allah hadii aad rabtiin anigoo tartiib u karinayane videogaas soo daawada walaalahayga qaaliga ah jabaatigeenii sidaas aan usoo dubanay asxaabteeda qaaliga ah waa soo dhameystay masha Allah halkaasaan ku soo ritay hadda waxaan sameysan doonaa insha Allah saladkii ama coleslawgii aad u fudud masha Allah aad u macaan caruurta jecel yihiin maalinta sabtidaan sameeyaa weel aan ku shubtaa insha Allah daboolkiisan saarta fridge-kan gashtaa qof walba halahay ka cunaysa ka soo shuban hadana daboolkeeda lagu celinaya waa karooto 2 xabo karooto aan soo hoolay kabashkii hadaydii waxa kale oo isticmaala insha Allah 2 qaando oo sokor ah iyo waxaan isticmaalayaa iyo qal bakeeri halfkiis waa isku soo qasay waxaan ku shubtay weelkii karootadii iyo kabashkii ayaan ku shubtay waxaan ku darsanaa insha Allah mayonnaise ku daraya wax yar cusbo ah ku dara insha Allah kadibna waa isku qasayaa sokortii iyo qalkii bakeeriga igu qasnayaan kor uga dari doona insha Allah qalaas waaba isku dhamaatay masha Allah kaslo fudud guriga ku sameysanaysa aad u macaan qofkii cunto cunay geeskiisa ka saaranaya caruurta wax walba aad siinaysaa ku dhahay geeska uga saaraysa masha Allah aad u macaan badan yahay hadda iskuulka u qaadanayaan caagada yar yar jiro oo ilmaha u soo gadanaysa caagada yararka ugu shubaysa marka cuntada aad siinaysid dhag aan ku dhahay masha Allah ilmaha hadii cuntada xataa isku fiicneen xitaa masha Allah alaabta cuntada way ku socodsiinaysaa kala iska arag maalinta sabtidaan sameeyaa weelkaas daboolan aan ku shubtaa fridge-kan iska gashtaa hadhow markaan soo gurayo qaandadan ku soo gurtaa ilmaha hadii soo guranaya qaandadooda ku soo guranayaan kala iska arag
qadadeeni diyaar noo tahay asxaabteyda qaaliga ah. Hadda waxaan soo baangeystay qudaartii, baradhadii, lima beeladii halkaas aan ku soo shubay basashii halkaas aan ku soo shubtay, liinta cagaar waaye saasa banaanka u dhigay. Markii jaalata fridge-kan iska gashay jiray. Halkan waxaa yaalo kaaroodkii, asagana soo dhaqay, cambihii, baashoonkii waa soo dhaqay. Kaarootada markii qalasho ayaan soo xirxiri doona insha Allah. Video qudaarta anigoo hagaajisanayeen hore ayaan soo gelishay asxaabteyda qaaliga ah. Hadda waxaan shiidi doona insha Allah cabitaankii. Qadada diyaar waaye. Qarahana sidaas ayaa markaan jarabax kor uga saara oo fridge-kan u gashtaa. Qarihii diyaar waaye. Waxaan ku dari doona insha Allah baashoon, waxaan ku darayaa 2 xabo cambe. Cabitaankeena waa qaro, baashoon iyo cambe masha Allah. Aad u macaan badan yahay cabitaankan. Dhag ayaa uga soo sii doona insha Allah. cabitaankii qadada waaye, qadada diyaar waaye insha Allah. Hadda hawsha dhan aan ku dhahay listaba kacsiinaya ama listaba dhigaya. Hadda hawsha dhan listaba dhigaya asxaabteyda qaaliga ah. Faano la fari kama qodno. Maalinta sabtida aan ku dhahay shaqada waa iska badan tahay masha Allah, laakiin maalinta axada ah ayay shaqada yar tahay. Hadda shaqo badan ma qabto. Markaan subaxii soo kaco shaqada la iska boobsiiya, kadibna shaqo iima taalo. cabitaankii diyaar u yahay. Ilmaha ayaan jabaatigu sameynaa, waa u jarjarayaa jabaatigii. Meeshaan keekay aan dhahay, keekay jabaatigii maharagada iyo alaabtan dhan dhag la isku soo siinaa. waa u jeedaan masha Allah. ilmihiisa ugu soo diyaariyay qadadii masha Allah. waa protein, carbohydrate, vitamin, fruitski masha Allah. waa balance diet aan ku dhahay. cuntadii dhan oo balance ayaa ilmaha loo soo diyaariyay masha Allah. intaysata Ilaahay u siyaadi, intaan haysanina Ilaahay ha siiyo. hadda waxaan u diyaari doonaa insha Allah gabdhahayga nafaqada madaxa u marinaya. maalinta sabtida nafaqa madaxa u mariyaa, madaxan ka dhaqa because maalmaha kaleeto waxaa la aadayaa iskuul la aadayaa. maalinta sabtida markaan qadada aan siiyo dugsi ka imaadaan, dhag madaxa nafaqadooda u mariya. intaan la gaarin waqtiga dugsiga madaxa laga dhaqaaya. ama habeenkii u dabanaysa markaas oo kale ama isla waqtigaas hadii aan dugsiga la gaarin u dabanaysa. waa 3 qaando oo mayonnaise 2 xabo ukun iyo xabad liin dhanaan waa masha Allah. nafaqada ilmaha tinta u bixinaysa, agoolka ma galaayo tinta masha Allah. tinta qurux u noqonaysa. kala iska arag nafaqada ayaa caruurta u mariya. 3 anuga u mari raba aniga masha Allah. sidaas u badiyay. waxaa kaloo ku dari doona insha Allah saliid qumbada, castor oil, mayonnaise, ukun iyo liin dhanaan. halahaas waaye. waa nafaqa aad u fudud. kala iska arag. waxaa la joogaa waqtigii casriya time ayaa maroynaa walaalahayga qaaliga ah. waxaan sameyn doonaa insha Allah bajiye wuxuu kala yahay 2 bajiye Soomaali iyo bajiye oo baradhe marka bajiyaha Soomaali waa bajiyaha digirta hadda midka sameynaa bajiye baradhada ahay. baradhadan soo jarjarana insha Allah. warwareega u soo jarjartay. halkan waxaan ku shubanaa insha Allah gram flour hadaydi ayaan soo gaday. waxaan ku shubanayaa caagaasaan uga soo dardarsan doona insha Allah. way bacda safe ma noqonayso. way ka daadan kartaa, wayna ka leersanaysaa. waxaan isku dari doona insha Allah gram flourkii, wax yar cusbo wax yar liin dhanaanta shiidan hal xab maraq digaag jab maraq digaag afan. waxaa kaleeto aan ku darsaday insha Allah food color ka isticmaalaya waa orange ayaa isticmaalaya insha Allah. ayaan ku qasanaya iyo wax yar curry powder bajiyaheena ku dhahay masha Allah. bajiye aad u macaan ayaa caruurta looga soo tuuraya casriyahooda. cabitaankii hadayda ayaa badnaay. cabitaankaas ayaa casriyahan cabi doonaan insha Allah. iyo bajiyahooda qofkii bisaas rabo bisaaskiisa ku darsanaya. qofkii rabo yaanyo kaligeeda ku darsanaya. markii aan soo diyaariyo waxaan ku qasaa insha Allah hal bakeeri oo biyo masha Allah. sidaas ayaa ugu sameey doona insha Allah bajiyihii. kala iska arag bajiyaha waxaan ku qasaaya weelka ayaan ku wada geey doona insha Allah bajiyaha. kadibna waa dubi doona insha Allah. waxaa la sii marooyaa galab walaalahayga qaaliga wixii waqtiga isguraaba insha Allah.
soo dhawaada yaa idin leeyahay aad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaan ballantii aan kasoo baxay maalinta sabtida ama weekendida waxyaabaha aan qabto insha Allah waxaan rajeynayaa inaan aad uga hesheen bijiyaha ayaan dubanaya insha Allah bijiyahan soo dhameysanaya walaalahayga qaaliga ah waan idin mahad celinaya dhammaantiinba sida quruxda badan ay igu xirantihiin haddii aad fiidiyowga ka heshay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo dhahdi channelka to subscribe ko ahayn hada video ka heshay ina share dhahdi la wadaagta asxaab insha Allah waxaan idin leeyahay mahadsanidin saa ila socoteen waan soo dhameeyay bijiyihii alaabtan soo dhaqday alaabtan qalajina insha Allah alaabtan baangeynaya markaan alaabta baangeeyo insha Allah jikadeeda hagaajisanaya jikadeeda yarta ayaan hagaajisanaya oo dhac ka soo siiso doona insha Allah alaabta waan dhaqay waa wada baangeynaya hoos ku xareynaya insha Allah qof meel walba alaabta dhinac walba kala leedahay ayaan kala geli doona insha Allah asxaabteeda qaaliga ah dhammaantiinba kama daalay ina idin mahad celiyo jikadeeni sidaas inoo soo baxday quruxda badan kala iska arag ma sha Allah qof walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu siiyaa u barakeeyo inta aanan haysanin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ah wax walba ay jecel yihiin oo qeyr ah hasiyo walaalahayga qaaliga ah waa mahadsantihiin dhammaantiinba videoga wuu dheeraaday waan idinka raali gelinayaa inta aan ku kulmi doono videogan mid ka xigo waxaan idinkaga tagayaa farxad iyo caafimaad ku waara insha Allah salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh